asxaabay waxaan soo booqday wasaaradda waxbarashada meesha ugu muhiimsan ma ahan dhaqaalaha iyo ma ahan ciidanka iyo ma ahan waa wasaaradda waxbarashada Somali State of Galmudug bal iyadana gudahaan u galno laakiin banaanka horaan aad iyo aad ula dhacay bal waa eegaynaa insha Allah wasaaradda gudaheeda aad ayay u dhiraysan tahay haddaan soo galay bal waxaan eegi doonaa insha Allah gudaha wasaaraddan eegi doonaa bal idinkana ila socdo arka waa intu soo itaabsiin maanta waxaan la ii sheegay Galmudug 60% inay wasaaradaha iyo hawlwadeenada ay yihiin rag dhalinyaro dhinacyada hubinta tayada waxbarashada aad u jeedaan waxay haystaan higsiga waxbarashada qaybta soo dhaweynta receptionka is the most important place markaan meel timaadid oo wasaaradda waxbarashada Galmudug culture higher education iyo hiddaha iyo tacliinta sare marka meetingkan tagaynaa bal aan aragna wasiirka halkan ku jira la yiri training ayaa socdana maynaya oo ma sha Allah wasiirka waa kaas xataa umarayn ma haddaan makrofoon isticmaalin inuu meeshan iga arkay can you believe it waa golihii wasiirada mudane wasiir ismaba maqlayn inaan mataqaana soo qayliyo waaye golihii wasiirada ee White House kan moodi meeshan ma sha Allah by the way calankii Soomaali originalkan waa yaala ana calankan aad uga dheedhiya laakiin calankii originalka ku yaala mudane jazakallah khayr soo dhaweyntaada qiimaha leh wasaaraddaada waxaan iri Galmudug under 40 umba wasaaradihii meel walba jooga wax lagu farxo wadanka dhalinyarada idinkoo kala duwan heli lahaa wax walba hagaagi lahayn maxaad qabataan wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada runtii markay dawladda hadda jirto laga soo bilaabo 5 sano hadda noo dhamaatay waxaan ugu imaanay horta markii hore ardayda marayso 7,000 nabarkooda dadaal badan iyo waqti badan oo la geliyay iyo juhdi badan oo la geliyay waxaan adduunyada maahay ku guuleysan ilaa 120 iyo dhowr gaarsiino wali hadda database waa online oo ay ku jiraan maalin walbana koror ku socdo oo accelerationka state-da marka la dhaho xawaaraha numberka uu ku soconayo state-ka Galmudug ugu badan shaqadaas marka ilaa hadda socoto ilaa konton iyo dhowr iskuul wax ka badan hadda gacanta dawladdu ay ku hayso wasaaradda waxbarashada ay hoos tagaan waxa kaloo jiro iskoolo badan oo kale oo wali informal ah oo meelaha baadiyaha fog oo laamiga ka baxsan aan ka sameynay oo qaybtood ay maaragtaa xataa seeraalihii ku jiro oo dadkii waaweynaa wax lagu barayo habeenkii wax lagu barayo habeenkii wax lagu barayo dadka waaweyn sidoo kale waxa ku jiro iskoolo community-du leeyihiin oo community-du caawiyaan laakiin anagu aan ka siino mataqaana manhajka sidoo kale tababarada iyo macallimiinta aan ka taageerno sidoo kale meelaha ay maaragtay shelterka u ah oo xarumaha u ah laftirkooda maaragtay aan support ka siino dawladda hadda jirto Galmudug madaxweyne Axmed Cabdikaari Qorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka ciid ay hogaaminayaan muddadan hadda 5 sano ka hor waxay ku guuleysteen waan arki doontaa video marka la doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka video magaalada ay dhex marayaan magaalada waxaan hadda jiro ma ka jirin magaalo burbur ka soo kabsanaysa iska ahayd Galmudugna waxay iska transition galka ay soo fadhisay muddo badan sida og tahay ilaa iyo dawladdii Shariif oo caalin uu ka qayb galayay shirka maamul goboleedyada maamulka Galmudug iyo Puntland bas ay jiray markaas adigu transitionkaas marka waxay soo gashay in cadaadad la yimaado oo cadaadad la soo gaaro haddana dhuusamreeb la yimaado dhuusamreeb marka la yimid hubanti la'aan ay jirtay dawladdan markay dhalatay madaxweyne ku-xigeenka la doortay oo golaha wasiir jirin media-hana ka arki doontaa haddaa research garaysid 99% in dawladdaas ay filgaroobi doonto sidii looga bartay Galmudug oo isqabqabsiga iyo qolaba meesheeda maaragtay horumar aan jiri doono meel u socon saasaa la dorasay dadka Soomaaliya oo daraso dhan nasiib wanaag waxaa suura gashay markiiba in la xalliyo khilaafaadkii oo ahlu sunna wal jamaa qayb si military lagu xalliyo qaybna si diblomaasiyada lagu xalliyo oo ay soo socotay muddo 2 sano wax lagu jiro marka mataqaana geedqaad maaragtaa bal nidaamkii horta dadkii ka soo horjeeday lagu qanciyo dad badan oo looga guuleystay oo si hoos u shaqeynayay oo dawladda ka soo horjeeda jiray
iyo dad hubeysan iyadoo waliba sii dheertahay shabaabkii iyo ciladahaas oo dhan ay sii jiraan COVID-19 kii laftarkiisii yaa saameyn badan ku yeeshay kabacdina waxaa suura gashay dee dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 2 in lagu qabto dhuusamareeb 3 oo Soomaaliya oo dhanba focuskii galmudug ay maarata ay soo saarto dowladda xashiiq ka horreysay madaxweyne Farmaajo shirarkii ugu waaweynaa oo dhaxalgalka ahaa oo dalka masiirkiisa dhan looga tashanayo in halkan isugu magaalada Soomaaliya inay ka dhacaan anaa ka qayb galan isbedel weyn baan arkaa wasiir ilaa iyo xilliga iyo hadda markii taas u dhacday waxaa suura gashay markaa in shabaabkiina aan riixno oo jabino kabacdina bal loo soo jeesto markaas infrastructure-kii wasaaraddan hadda arkaysid waxay kasoo bilowday qaybtan ugu dhigan hadda haweenka waxay ku haystaan dadka tababarka iskoolka haweenka oo midwifery-ga lagu tababaraa adoo 3 qol wasiirka boqol lahaa wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowlaha iyo shaqaalaha caadiga ah xafiisyadooda ay qayb ka lahaayeen waxaa suura gashay marka in bal infrastructure-ka dowliga ahaa oo la dhiso si dowladnimada maaragta ay u hana qaado u socoto waxaa suura gashay marka wasaaradda asadda soo aragtay caafimaadka in la dhiso wasaaraddii qorsheynta la dhiso biyaha la dhiso wasaaradda kalluumaysiga la dhiso wasaaradda waxbarashada oo de wasaaradda milgaha leh oo ugu muhiimsan service delivery-ga bixiyo ummaddu dee waxbarashada ka toosto ay toosayso iyadana waa la dhisay oo lagu guulaystay dukoorkaas arkaysa iyo kharashaadkaas faraha badan ku baxay waxaa kaloo intaas dheer in golihii deegaanada marka laga hadlayo wasaaradda arrimaha gudaha hadda waagii January 1st madaxweynuhu uu dhagax dhigay oo sanadka 2025 ka mashaariicda lagu bilaabay ba ahayd wadadan hadda laamigaana way soo socotaa iyada marka madaxweynaha soo noqdaa la rajeynaa insha Allah in marata ayadana la dhex dhigo marka dowladihii hoose waxaa noo suura gashay badi degmooyinka galmudug inay doorasho ka qabsoonto oo maaragta lagu dooranayo maayarka caasimadda maayarka geeda qorow hadda caasimaddan jooga wuxuu ku yimid doorasho balanbal iyo caabudaaq iyo waxay ku yimaadeen doorasho waxaa sidoo kaleeto doorasho ku yimid xeraale magaalada gurceel gaalkacyo magaalada cadaado oo weliba dee contest ah oo si maaragta xoog badan loogu tartamayo selectionkaas markaa selection fiican oo dadkii maaragta golihii deegaanka lagu soo doortay golihii deegaankana kabacdi ay doorteen mataqaanaa maayarkii maaragta magaaladaas marka waxyaabaha cajiibka ah oo aad in la sheego oo siyaasadda Soomaaliya maanta ay ka bad qabto 5 sano hadda galmudug soo jirto waxa kamid ah institution stable ah oo ah maaragta aan buuq iyo dib iyo madaxweyne ku-xigeen ishaysta iyo gudoomiye baarlamaan iyo ishaysta aysan jirin sida looga bartay dowladihii hore ku meelgaarka waana midda aan leeyahay transition anaga galmudug hanadaan nahay waa ka baxnay oo 5 sanaan uga baxnay markii hore transition ay soo jirto hadda waa development hadda horumar iyo hadda waxaan rajaynaynaa doorashadii one man one vote pilotkeeda inaan anaga iyo gobolka Banaadir aan sameeyno waana shaqo dadka reer galmudug maanta madaxweynaha sidoo sheegay galmudug oo halhayska ah galmudug waranka yaambay ka tumatay halhayska aad iyo aad aan ula dhacay marka in yaambadii waa aragtaa wax soo saar ay ka hadlay iyo wax dhisid iyo tartan in wax lagu tartamo sidoo kale magaalada gaalkacyo oo in badan qololosooda iyo waxaydi ay soo jitman dowladda galmudug maamul goboleed galmudug waxaan aan ku riixnay bal in nabadda laga wada shaqeeyo ma sha Allah annagana ay naga arkeen kalsoonidaasna ay maaragta gashay guud ahaan galmudug hadda waa nabad magaalooyinka ilaa xeebta ilaa haddii ilaahayd maayo waxa xor ah ceel dheer marka la dhaafo oo meesha iska galna annaga iyo hirshabeelle sax xeeb qurux badan oo aan lahayn wax jabal ah dhagax lahayn oo kulligeed wada ciid sand white sand halkaas hadduu ilaahayd maayo ugu tegi doonta inaad booqataan insha Allah intaasan kusoo gaabina jazakallah khayr wasiir aad u mahadsantahay sida waqtiga noo siisay marka aadaan kugu mahadcelinayaa soo dhaweyntaada iyo waxaan ku faraxsanahay dhalinyarada iyo horumarka ka hadlaysid wadankana dhalinyarada kale u baahan jazakallah khayr waa mahadsantahay